بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومالين سبتيا وبشا كوباد سنة اللبضة كونية صدحية طبانكو أي تهيشان مركة هوري waxaan halkan tacsi aan uga dirayaa dadweynihii dhibaatada iyo dilka ka soo gaaray dhacdadii foosha xumeyd maamulka Somaliland ay macnaha ku laayeen dadka reer awdal ama reesala leeyahay ku muujinaya dareenkooga doorashada saylac ka dhacday xalaasha waxaan leeyahay ilaahay ka siiyo sabri iyo iibaan dadkii eheladoodu ay ku dhinteen kuwa ku dhaawacmayna waxaan leeyahay ilaahay iyagana haw sikhiro hana ka bogsadeen ayaan leeyahay marka labaad waxaan halkan ka akhrin doonaa maansoo la yiraahdo nin la sigay ma faana micnaheedu waa la garan karaayo waxa weeye dibtu marka ay dadka haysato haddii qofka wuxuu leeyahay lagu qabsado dabadeetana waxaa looga tago inuu faano maaha marka runtii ciidaan la hadlayo isgaranaysa waxaan dadka ku boorinayaa in dib loo noqdo waxa weeyaan deegaanada dhibaatadu ay ka jirto guushu wali guuli waa gelin dambe in lagu noqdo waxa weeyaan la deegaameeyo ayaa dadka ku boorinayaa maansada kulli wixii ku jira idiga ayaa kala bixi doona waxay leedahay maansada nin la sigay ma faana marka hore salaan guud duco saatir iyo khayr inta soo majeestay dulmi lagu sadqeeyay lagu solay rasaastow tacsibaan la sara kacay indhaweyd basooriyo hurda ima sirayno cunto waan ka soomo sabda dhexe habeenkii markaad wada suquurtaan sawbaan koraayo xidigaha sagaalkee ku sargoon hayaankan kolba midu siqaayo nacabkiyo sufaygan saldhigooda khaaska ah kolba sahaminayo idinkaa ka seexdee safka reer allaalee ka dhur sugan nasiibkow allaylehe ma sigateen sanadyaal 20 waan saahidayo anoo sabadka joogo dul fadhiya sariirtan sacadiin tagaayo markaad saw agteediyo seeraha ku ururteen salalay dhulkaagiyo in badii la sahansaday si cadbow arkaayo sacabada durwaagiyo sanqadh baan maqlaayo inaa surin lagu dabay saxalkiyo mariikha warka sugan isiiyey safka reer allaalow adaan suldhabaaliyo sanqashada fahmayno suuq doqon mawaayo subaxdii camirayo saylici warkiisiyo siraanye iyo xamar saddexdaa ku daale ma ogtahay sokeeyow intaad igu sasaysaan samee gabay ileediin haddaad tahay mid saaxiya suugaan maxaan qoray saddexe habeenkii 30 jeer intaan kacay hawraar sabiibo subag aan ku daabacay intiyoon salka u dhigay imisaan sariyo hoos sirta kuugu sheegoon kugu idhi samowtos ma ogtahay sokeeyow adigoo sunkuu yaal ama sixir laguu dhigay bala soo sinqaysiya wax sawaaban oo daran imisaan salliga nebi yaasiin 9 ku dabiibay saafad imisaan sokeeyow hal abuurku sahansaday samaydaada dhaawacay intiyoon la sara kacay sadarrada mamnuuciyo suugaan wishaysiya waabay ku saydhoon sumcadaada daafacay balse waxaan la salalaa kuwan suuqa boorama sacabada tumaayow waa su'aal jawaab lehe nin la sigay ma faana safka reer allaalow samaydiyo yagleelka ku sugnaanshahaaga sabadkaaga dhowree seeraha dushiisiyo markaad saw ku ururteen inaad salal u baaqdaan ma wax suuro galaya safka reer allaalow midnimadu sad weeye sidan horeyba kuu idhi 3 qolo intaad tahay ee uu suldaanada kolba midisir gaariyo sibiq hoose leeyahay inay tala saxnaataa sacabti mala weeyaan safka reer allaalow ilbaxnimadu seeriyo waxay saab ku leedahay
taladiya sinaanto jidka noloshu sudan tahay waxa ku sakhiri kara fikir suubintaadiyo samay qorashadaadiyo kartisidashadaadiyo sahandirashadaadiyo saymaha adduunyada kasal gaadhistoodiyo saantiya dareenkiyo dhalashada sarreyso samay lagu wadaagay dadkan wada surgacanow waxay salil ku leedahay marka taladii saydeen garashada simbiideen midnimada sadqayseen kala saama noqoteen dad kale ay sahansaday safka reer allaalow magacaagu waa same waxa tahay sidkii maal lagu lada sintiiso ku sifoobay gobonnimo salowgiyo dagaalkii lagu saydhay dhiigee Soomaali soo maray adiga ka saafiya balse saaqid uma qabo nin dulqaadka saaciday inuu yahay sareedee dadkan sabadka kula yaal nina kuma samafalo ninka ku sadiiqee suba ku dhigaayiyo ma taqaanid soorkiyo kani seefta qaatee sarartaada dhaawaca ninka sayma kula raba ama sayta iyo dabar salligaad u fidisaa saadaalla kuma lihid xaajada sindadabkiyo nacab soo sinqaayo surmatida lagu dhigo sahan kuma sheegee alluunbaa ku saacida dan wixii ku seegee tala kaa sanbaabtana kama xidhatid suunkee safka reer allaalow samirkaa taqaanaa mana lihid siriya qaab qorshe lagu saxeexee waxa saaka lagu shiro 2 saaco gudahood Singapore dhexdeediyo Sydney baa la geeyaa mana haysid saaxiib arrin kula sargooye ku kastood u siniqdaa adigu ku sooba siro inaan tahay mana suubinaysaan badda sayladeediyo dekad inaad samaysee sonkortiyo bariiskiyo saabuunta iyo loox waxaad daba sugaysaan surinkaa Jabuutiyo berberadan sintaadee ninka lihi u sahan tegay mana haysid surinkii sibir lagu guraaye dhagax lagu suntaaye maqsadaada sugan iyo salaltaada qaniga ah sararkaa aloog iyo sawbaad ka raacdee safka reer allaalow alla ilaahay 9 jeer ha ku solota gaajadu sarta kuma heshiisaan mana kala socdaashaan isma seegi weydaan saxna uma cadhootaan sunta iyo qabiilkiyo subciskeeda sheekada subax qura midaysaan sadna kuma helaysaan wax ma sahamin weydaan mana sugi taqaanaan xalaybaan sifaalaha saxalkiyo mariikhiyo godka seerma weydada sacadiin ku kulanno waxay saylac igu tidhi inta uu sidaa yahay uma baahni samaroon waxaan idhi sareedoy saliltaan jeclaayay sumadan ku dhaatay sumadan ku dhaatay marna seexan maaye waxaan tirini suugaan sanqadh beena ha u jebin waxaan idhi sir kale hoo dadku way sanbaabeen mana aha sidii hore boqor iyo suldaan iyo dhalinyaro sud dheer iyo sabigiyo islaamaha dadku saami weeyaan saddex magac ilaahay ninka soomahaagiyo surinkaaga soo gala wax kala ka salaglo seeftu way dul taala waxaan idhi sir kale hoo nin kastoo subraarkiyo sumcadaada dhaawaca siiraanyadaayo haddii weli siraad yahay kuma saacidaynee waxa dhaca bal suure sacabkay garaacdo waxay tidhi sax weeyaan aniguna sidoo kale gacan iyo salaan mudan halkaasi ay qaybta koobaad ee maansada la dhaahdo nin la sigay ma nabad galay ku eg tahay waxay soo bixi doontaa midooyinka soo socda qaybaha dambe waxaan mar labaad salaamaya bahda saxaafadda dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto inta qadiyada salil waliba si gaar ah u xiisaynaysa waxaan ku boorinayaa dadka in dhulkaasi laga sameeyo deegaamin oo waxa weeyaan aan dadku aanay ku soo ururino macnaha magaalada Boorama oo dadku ay halkaasi dib u noqdaan ayaan macnaha aad ugu boorinayaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi